daawadayaal intaanan muuqaalka bilaabin waxaad ka codsanaynaa inaad subscribe saartaan kanaalka like-na saartaan si uu dad badan u gaadho. Like-tu waa muhiim. iyadoo aynan odhan karin Somaliland doorashadii ka dhacday waxay ku salaysnayd qabiil, haddana waxa muhiim oo aan laga maarmaynin inaan sheegno sida loo kala helay golaha wakiilada iyo deegaanka. doorashadu waxay dhacday sannadan aynu ku jirnay 2021 bishii May 31. haddaba waxaa jira beelo liiskaasi iska waayay, sidoo kale waxaa jira kuwa ku soo biiray. waxaa ka mid ah beesha Madhibaan oo weligeedba arag golaha wakiilada iyo hoolkaasi gudihiisa. haddaba waxaa jira garyaqaan barkhad batuun oo haatanba ku soo baxay golaha wakiilada, weliba codkii ugu badnaa taariikhda Somaliland oo ay ka dhaceen 7 doorasho inta loo ogyahay. waana Somaliland oo ololaha lagu jiray muddo 4 cisho ah oo xisbiyadu ay isku bedbedelayeen, midba 2 cisho uu lahaa. muddadaas oo ay ololahoodii ku soo dhamaysteen isla markaasi maalin kadibna ay doorashadu dhacday. haddaba waxaa liiskani iska waayay oo aan iskuba arag beesha warsangeli oo eber keenta, waxaana loo sababaynayaa inaysan qaadan kaadhka isla markaasina aan lagaba codaynba. degmooyinkii ugu waaweynaa ee ay degi jireen iyaguna gaarka u leeyihiin waa Laas Qoray iyo Baran iyo Dhaxar oo ay iyagu aad ugu badan yihiin. haddaba iyagoo magaalooyinka lana dega haddana eber waxba may u soo bixin beeshaasi. haddii uu beeshii warsangeli ee weyneyd ay xubin qura ka weyday golaha wakiilada Somaliland, waxaa nasiib u yeeshay beesha Madhibaan oo 1 xildhibaan ka heshay, isla markaasi aan horeba u haysan halkaasi xildhibaan, maadaama uu hadda matalayana aad ugu faraxsan inay heleen xildhibaankoodii oo magaalada Hargeysa oo dhammi ay u codaysay, isla markaasina noqday ninka ugu codka badan golaha wakiilada Somaliland. haddaba waxaa jira beesha Fiqashini oo iyaduna heshay 1 xildhibaan, kaasi oo ay ku faanayaan. waana beesha ka soo jeeda beesha Hawiye ee weyn, gaar ahaan qabiilka Habargidil lagu magacaabo. haddaba waxaa jira barkhad batuun, garyaqaan barkhad batuun oo ka soo jeeda beesha Madhibaan, isla markaasina ah xildhibaanka qura ee heshay beesha Madhibaan. waa xildhibaan ay u codaysay Hargeysa oo dhan, isla markaasina ka sharaxnaa gobolka Maroodijeex. haddaba Maroodijeex oo dhan ayaa u codaysay, wuxuu helay 20,000 oo cod in ka badan. tiradii ugu badnayd ee xildhibaan golaha wakiiladii ku soo baxo taariikhda Somaliland oo ay ka qobsoomeen in ka badan 7 doorasho oo qof iyo cod. waxaa xusid mudan in garyaqaan barkhad batuun iyo Cabdikariin Axmed Mooge ay shacabka u sheegeen inay iyagu waxqabadkoodu uu yahay inay magaalada Hargeysa uu horumariyo Cabdikariin Axmed Mooge. sidoo kale uu sheegay barkhad batuuna in uu jeexi doono jidkii cadaaladda, dadkuna ay ku doorteen waxqabadkooda iyo siday u sheegeen. garyaqaan barkhad batuun ayaa sheegay inuu matali doono kuuliga iyo dadka danyarka ah ee ku nool magaalada Hargeysa, halka uu sidoo kale Cabdikariin Axmed Mooge sheegay in uu ka dhigi doono magaalada Hargeysa magaalo cagaaran oo magaalooyinka adduunka la tartanta, sidaasina lagu doortay, halka ay kuwa kale aysan waxbaba samayn. haddaba doorashada waxaa inta ugu badan xildhibaanada ugu badan qaatay beesha Isaaq oo ah beesha ugu weyn Somaliland. waxaa ku soo xigta beesha Samaroon oo ah beesha ku soo xigta 12 xildhibaan. beesha ku soo xigtaana waa beesha Dhulbahante oo heshay 6 xildhibaan. beelaha kale waa kuwii aan soo sheegnay oo min hal ay heleen. waxaa ku soo xigta beesha warsangeli oo eber heshay, isla markaasina aan qaadanba kaadhka codbixinta, aan sidoo kale aan lagaba codeynaynba deegaanada ay iyagu degan yihiin, isla markaasina ay deegaan ahaan u degaan. magaalooyinka ugu waaweyn lagama codayn. intaasina waa xusid. daawada intaa kadib waxaa kaa codsanaynaa inaad kanaalka subscribe saarto, aad ku xidhnaato, like-na saarto, isla markaasi si uu dad badan u gaadho. mahadsanid.